soo horjeedaan iyagoo diidmadoodana sal uga dhigay in baarlamaanka aanay ku kalsoonaan karin tan iyo inta ay joogaan ciidamada cusub ee dhowaan la wareegay amniga dhismaha baarlamaanka haddaba barnaamijka faaqidaada toddobaadka ayaan ku falanqaynaynaa waxa ay xubnaha baarlamaanka uga gudbi la'yihiin isfahm la'aanta la xiriirta arrintan iyo sida uu xaalku ku dambayn karo haddii uu baarlamaanku arrintan si sharci ah oo is-afgarad leh ku xallin waayo waxaa barnaamijka igala qaybgelaya labada xildhibaan ee kale ah Shariif Maxamed Cabdulaahi iyo Axmed Macalin Fiqi iyo sidoo kale Professor Xuseen Axmed Warsame oo ka mid ah guddigii ansixinta dastuurka iyo sidoo kale Muxyidiin Axmed Roble oo ah wariye iyo falanqeeye arrimaha siyaasadda dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah waxa la isugu afgaran la'yahay goobta uu baarlamaanku ku shirayo waxaan ku bilaabayaa Fiqi horta waxa weeye walaal aaso anigu waxaan ka danahay guddiga golaha shacabka markii habeenkii gudoomiyaha golaha shacabku uu meediyaha la hadlay uu sheegay in xaruntii ciidamo cusub la geeyey ciidamadii hore joogo diplomatic booliiska la dhihi jirayna qaaday waan ku baxnay maalinkii galabtii waanu tagnay guddiga iyo guddiga amniga iyo habdhowrayaasha baarlamaanka sadexda ayaa tagnay waxaanu soo hubinay joogay 20 ku dhawaa hogta ligay in Dakar lagu xareeyay in ciidankii xitaa baabuur aan lagu qaadin siyay gaadiidka hada gaadiidka booliiska la geeyay sidii ciidamo yani qabtada kale goobtiina waxaanu kula kulannay taliyaashii cusbaayo meesha loo soo magacaabay ciidankii waa ciidan bir la yiraahdo ciidamada dagaalamaha meeraha xasaraduhu ka jiraan iyo dhibaatooyinka marka ay soo waxay yiraahdeen amar baana lagu soo siiyey halkan inaan joogno waxaanan u hogaansanaynaa amarka taliyaasheena ee nasiya meesha sidaas ayaa golaha shacabka loo qorsaday hadda xaaladda jira iyo qaabka loo keenay iyo wasiiradii amniga iyo gaashaandhigga oo inay mooshin barabkay yihiin ciidanka ay amarka siinayaan iyagu oo aan ognahay hoteelada ay kasoo muuqdoweyso iyagoo dharaaqada xafiisyadooda ka yimid olole ugu jira maaragtan maaragtay ku hirgeli lahaa qad iyo sax labada dhinac sida ay noqoto meesha marka in doorasho xalaaliga ka dhacdo wax uma dhawo inay doorasho ay ka dhacdo marka waxaan leenahay ma diidanin goobta ciidankii hore hala soo cesho sida hadda aqalka sare guddigooda oo dhexdhexaad ah ay ku taliyeen sida guddoomiyaha iyo xildhibaanada ay codsanayaan hadda ciidankaasi waa ciidankii guddoomiye jawaari la dooranayay marka muddo la dooranayay ciidankii laftoodii hala soo cesho ha lagu kalsoonaado haddii ayaan soo celinayn waxay noqonaysaa goobta dhexdhexaada in la raadiyo santa waa kugu soo noqon doonaa mar kale waxaan isla su-aashaasi siinayaa Shariif Maxamed Cabdulaahi Shariif mar haddii goobta sida uu sharaxay xildhibaan Axmed Macalin Fiqi ay tahay goob ay ciidamo kala joogaan taariikhaha uu ka dhawaajiyeen ay jiraan maxaad adinku u rabtaan in xarunta baarlamaanka mar haddii aanay dhinac ka mid a dhinac baarlamaankii ama xubnihii baarlamaanka aanay ku qanacsanayn oo aanay kalsooni ku qabin in halkaasi wax xalaala ka soo bixi karaan maxaa idinku u rabtaan mahadsan tahay waxa weeye horta haddaan tafsiirka uu ka bixiyey aan ku qonaya aan ku beeranayo mooshinka dadka keenay waxaa weeyana qof guddoonka ka mid a inay u dhiibaan bay ahayd annaga ma aha guddoomiye ku-xigeen horta ugu dhiibnay wixii dhaliil iyo cillad iyo duris ahna waxay imaanaysaa marka hoolka la keeno kay axad isaga lagama keenin mooshinka qofka laga keenay waa guddoomiyaha marka waxay carqaladeeyeen habsan uso hawshii loo wadi lahaa hadda promotion laga keenay ra-iisul wasaare Saacid baa lagu qaaday kama dhicin ra-iisul wasaare kale laga hadda 6 sano ka hor xaaladda Soomaaliya sida ku meel gaar lagu jiray iyo hadda xaaladda isku maaha arrimaha qaar oo nabadgeliyo iyo maamul aniga kama jawaabayo oo wixii nabadgeliyo xiriira iyo ciidan la qaaday bulshada ku shaqo leh baa ka jawaabi kara inta dhacday waxay tahay xogayihii guud
iyo shaqaalihii arkiibyadii iyo maxaan ku idhahdaa haystay documentationka iyo ayaa documentigii qaatay markii la wareegay meeshii waxa weeyaan waxay noqotay shaqaale iyo guddoonkii ayaa israacay marka annaga waxay ahayd xildhibaano biirsaday oo 92 ka badan baa geeyey mooshin waxay yihiin guddoomiye ku-xigeenka qaabilsanaa guddoomiye ku-xigeenka annaga nagama tirsana wuu tirsaday wuu hubsaday wuu saxiixay isaga suulidiisa tahay marka la keeno oo meesha la keeno ayay axmed iyo inta kale lamid ahba ay ahayd inay meesha ciidaha haday jiraan ka sheegaan adoo raaliya sharif lagu doortay wey howlkii lagu doortay way tahay laakiin dhinac ka mida xildhibaanadii kala shaki ka muujinaya inay meeshaasi wax doorasho xalaala ama xora ay ka dhici karto mar haddii ciidamadii haystay ciidamo kale lagu soo kordhiyey oo ciidamaan hore u joogi jirin la keenay mar haddii shakigaa uu jiro si mooshinkiinii adinkana uu u meel maro oo cod loogu qaado maxay ku diidaysaan in goob dhexdhexaada la tago mar haddii goobtii aanay dhinaca kale ku qanacsanayn horta waa ceeb in hadda la yidhaahdo xalanaan tagayna iyo meel kalean tagaynaa xildhibaano gacan ama codka dhiibinaan jeedaa wax haba yaraato dhibaato ka jira lama arko ciidamadaasna marka jawaabi kara ku sheegay guddiga aqalka sare oo arrintaas soo faragashtayna wax xushoodii ah iyo wax ay ku shaqo leeyihiin ma ahayn arrin aan dhib aan jirin baa la buunbuuninaya waxa weeye jihabraaca in la ogolaaday ahayd guddoomiyuhu waa guddoomiyeeni marin 5 sano soo guddoominaya aniga tii horena waan ku jiray haddii hadda la keenay mooshin laga keenay waa ku barlamaankeeni guddiga ayaan rabnaa in lagu guddiga aqalka sare waxyaabaha ay ku taliyeen talooyinka ay soo jeediyeen waxaa kamid ah in ciidamada meesha laga qaado ciidamada aniga laftigayga in laga qaado waa ay jiraan waa qabaa laakiin sideedaba aqalka sare maaha guurtidii Somaliland oo odayaasha ahayd maaha howl bay leeyihiin howl baan leenahay barlamaanka la sugma imaanin khilaaf weyn ma dhicin keli ah waxay dhaysay fariq oo ah in mooshin la geeyo maxaa adduunka oo dhan kiciyay waxaweeyana fulhaayeen wada arko marka waxaan qabaa ciidanka taas waxa ka jawaabi doona dadka maamulka ayaa ka jawaabi doona laakiin waan qabaa in ciidankiisii hore ay joogi karaan waa tahay waad mahadsantaa kugu soo noqon doonaa mar kale Muxudiin Axmed Rawl maxaa ku dar lahayd mar haddii labadii dhinacna uu waxaan ku dari lahaa horta dooda ah in fadhiga baarlamaanka golaha shacabka mooshinka looga doodayo in meel kale la geeyo ama meel dhexdhexaad loo raadiyo la yiraahdo waxa keenay marka horeba waxay ahayd horta ciidamada cusub aan baarlamaanka horay amnigooda u qaabilsaneen meesha la keenay taasoo sii xoojisay shakiga iyo tuhumka ah in xukuumaddu ay si ugu lug lahayd mooshinka taasoo xildhibaanada qaarna ay sheegeen guddoomiyihii baarlamaankana uu afkiisa warbaahinta uga sheegay tuhumka ah in xukuumaddu mooshinka si ugu